maalmihii u dambeeyay waxa si aad isku soo tarayay aragtiyaha iyo sidoo kale dhaliilaha xoogan ee loo jeedinayo xarunta dhaqanka ee magaalada Hargeysa iyo barnaamij dhawaan lagu qabtay xaruntaasi. Inkastoo aan inoo suurtagelin mas'uuliyiinta xaruntaasi inaan wax ka weydiino aragtiyaha dadweynaha iyo sidoo kale dhaliilaha si loo soo jeedinayo, ay taa beddelkeeda mas'uuliyiintaasi waxa ay ka soo saareen dhaliilahaasi iyo eedeymahaasi war qoraal oo ay dhawaan soo saareen. Warka qoraalka ay soo saareen ayaa waxa uu dhignaa sida tan: waxa jira weydiimo ay dadka qaar ka soo celiyeen barnaamij xarunta lagu qabtay salaasadii 28 bishii May 2019 kaasoo ciwaankiisu ah maalinta fayadhowrka caadada ee caalamiga ah. barnaamijkaasi waxa dulucdiisu ahayd gudbinta fariinta caafimaad ee la xidhiidha wacyigelinta bulshada. warkan qoraalka oo sii socda ayaa waxa lagu yiri barnaamijkan waxa isku soo dibirday ururka dhaqaatiirta dumarka ee Soomaaliland oo kaashanaya xarunta dhaqanka. qabanqaabadiisa waxa qayb ka qaatay shirkadda wadaniga ee magaceeda loo soo gaabiyo Somebodies, waxaana casuumad fidiyay wasaaradda waxbarashada iyo sayniska iyo wasaaradda shaqagelinta arrimaha qoyska iyo sidoo kale bulshada. warkan qoraalka ayaa waxa lagu yiri xarunta dhaqanka ee Hargeysa shaqadeedu ma aha inay jawaab ka bixiso ama jawaab si cid kastoo hadal ka keenta howlmaalmeedyada xarunta qaarkood lagu qabto, balse warkan qoraalka waa mid aanu bulshada ugu cadeynayno rasmi ahaan sida uu barnaamijku u jiray iyo hadalkan ka taagan oo ah arrin xaqiiqada ka fog iyo sida loo turjumay oo qaldan. warkan qoraalka ee ka soo baxay xarunta dhaqanka ee magaalada Hargeysa oo sii socda ayaa waxa lagu yiri barnaamijkan waxa cilmi ahaan ka hadlayay dhaqaatiir. fariinta ay gudbinayaan ayaa ahayd mid caafimaad, ma ahayn mid loo damaashaaday ama lagu xusay maalin gaar ah. waxa uu ahaa maalin loo asteeyay wacyigelinta caafimaad ee arrintan khusaysa. waxa ka soo qayb galay oo goobta ka hadlayay dhaqaatiir kala duwan, kuwa guud iyo kuwa gaar ah oo takhasus gaar ah u leh arrintan iyo waliba umulisooyin. waxaa joogay oo ka hadlay laba wasaaradood oo arrintani ay khusayso oo kala ahaa wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda arrimaha bulshada. waxaa joogay iyaguna goobtani ka hadlay ururada waaweyn ee haweenka sida Nagaad iyo Now. waxaa joogay culimo, macallimiin iyo hooyooyin oo dhammaantood ka hadlay wacyigelinta caafimaad iyo kuwa bulshada. warkan qoraalka ee ka soo baxay xarunta dhaqanka ee Hargeysa ayaa waxa lagu yiri isagoo sii socda: xarunta dhaqanka ee Hargeysa waxay aaminsan tahay in wacyigelin kasta oo bulshada faa'iido u leeyahay tahay mid u muhiim ah in laga shaqeeyo. barnaamijkana waxa uu ka mid ahaa kuwa wacyigelineed oo bulshada loogu talagalay. horena ay xaruntu u martigelisay barnaamijyo waxtar u leh bulshada oo ay ka hadlayeen dad aqoon iyo cilmi u leh sida barnaamijka horumarinta caafimaadka, dhalinyarada, wax soo saarka, hal abuurka, dhaqanka iyo kuwa lamid ah. barnaamijkani waxa uu hoos imanayay kuwii hore ee caafimaad ee hore uga dhacay xarunta sida kuwii macaanka, kii suuxdinta, kii caafimaadka guud iyo kii dhaaninta. waa barnaamij taxane oo aanu kala kaashano kuna martigelno ururada dhaqaatiirta kala duwan ee dalka ka jira, waana kuwaanu sii wadi doono ayaa warkan qoraalka qaybtiisii dambe lagu yiri. warkan qoraalka ee war-saxaafadeedka ka soo baxay xarunta dhaqanka ee magaalada Hargeysa ayaa waxa ku saxiixnaa gudoomiyaha xarunta dhaqanka ee magaalada Hargeysa Jaamac Muuse Jaamac. waxaan warkan qoraalkii si waafiya u cadeynaya dhaliilaha iyo sidoo kale fariimaha kala duwan ee maalmihii u dambeeyay sida tooska ugu dhacay xarunta dhaqanka ee magaalada Hargeysa. waxaan warkan qoraalka ku eegay mid ay guud ahaanba xarunta dhaqanka ee magaalada Hargeysa iskaga daadafeynayso eedeymaha si loo soo jeediyay iyadoo ku riixaysa wasaaradaha waxbarashada, arrimaha bulshada iyo sidoo kale ururada dhaqaatiirta ee magaalada Hargeysa. Khadar Ismaaciil Maxamed Khadar Dhambaal, wararka muqbaxiya caalamka badda Aston 4 TV Hargeysa.